إذا ما تيدين هاي تانات وأنت كقال تونها كل كذا وحليها. سمع الله لمن حمده. شكذا وحلا جاي بتدور يا المرة هراء يسوي تبيها صيا شد لبكينا أتسجين الدرتي أيام ما أنت اللي كسر عليه وسمع الله لمن حمده. من وذا إنه هراء قادرين الورجاء أيا هبين هذا كم ذا غير بو آخري مولد برسنت جيد دوبي عقباء xoolaa lagu qalay waa la ducaysanayay wadaadku habeenkii dhan buu caano iyo hilib dugduuranay reer u roodna way ahaayeen markii waagi baryayna wadaad gaariyo reerka u dhaxday ayaa awal ka mid ah hilibkii habeenkii la cunayay oo xarfaday ayay u soo laalaabtay subaxii markuu baxayay way jirkeen wadaad qandigaaga markaasay u riday qandigiisii cashadii intii ka hadlay iyo caanana way soo dhigtay laba neef oo jara oo ku faraxsanaana way soo xidhay wadaadka markuu intaa israacsaday reerkeena u duceeyey ayuu tuulo u dhoweyd buu galay subaxiiba labadii neefee la soo siiyeyna qiimo wanaagsan bay u baxeen isagoo makhaayad ka sheekaynaya oo iska cabaya bigayska oo iskaga dejinaya baruurta ilaa xalay cunayey ayaa wadaad isna tuulada tukan jiray oo ay siqiineen ayaa u yimid way isa salaameen war sheekh habeen carruurtii reerkiiba meel dhowa halkan yaalle waxaad yeeshaa maqribka iyo cishaayiga caawa magaalada tuji annaa reerka gaadhay wadaadkii baa ilaa igu hadleetaa iska socbay maqrib markii la gaaray ayuu wadaadka masaajidkii tegey qandigiisii oo alaabtii ugu jirto waa hilibkii oo afka ka xidhan ayuu dhigtay mixraabkii waa la adimay waa la aqiimay wuu safay dadkii dabeedna salaadii buu xidhay allahu akbar markuu intaanu bilaabin ayaa bisiri meelay ka timi mooye hilibkii soo urisay ay mixraabkii soo gashay oo qandigii afka la gashay wadaadkii talaa ku caddaatay dee le waa cashadiisii nin caqli badan buu ahaaye wax kaleba muu samaynaya bisinkunbuu carabka ku adkeeyo yidhi bismillaahi araxmaani iraxiim bisadii baa carabtay bisadii markay carabtay ayuu faatixadii waday dhexda markuu faatixadii marayo ayay bisadii haddana mar labaad soo noqotay oo qandigii afka la gashay markuu faatixadii dhameeyey wala daaliintii aamiintii la yidhi ayuu muu raacin suurad kalebe allahu akbar buu waa la rakoocay markii la rakoocay ayuu bisadii dabada qabtay oo yidhi samica allaahu liman xamida intuu dib u tuuray bisadii oo duulaysa ayaa nin safka dambe ku jira qoorta kaga dhigtay yaw jaqaaqdii baa looda maqlayo sheekhii wad qur-aankiisii iyo salaadii waa laga soo baxay salaaddii markii salaaddii laga baxay ayaa wadaadkii intuu dadka kusoo jeestuu yidhi waa yaabe subxaana allah casa wajal bisadii ciisii wadaadka qiilii maxay ahayd dadku may arkayni waxayaan sheekh safkaa dambuunbaa bisad duulaysa ninkii hebel qoorta kaga dhigtay markaasuu yidhi too wax sakaa miyaa lagu lahaa ninkiibaa qayliyo qaalin baa laygu lahaa markaasuu waanu kaa guddoonayana samica allahu liman xamida xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maadda iyo sheekada inoo dhaxan xubinteenna afraad iyo